sida mudaharaadayaasha Hong Kong ay ugu fogaadaan ilaalada booliiska ee ka hortagga rabshadaha. Banaanbaxayaasha ka socda Hong Kong waxay adeegsanayaan habab cusub ee tiknoolajiyadda sii kordhaysa taasoo tayadeedu aad u sarreyso, iyadoona iska ilaalinayaan kaamirooyinka iyo weliba ciidamada ka hortagga rabshadaha. Qalabyo casri ah ay u isticmaalayaan si aysan wejiyadooda iyo iyaga aan loo aqoonsan. Waxay kale isticmaalayaan qalimo ka samaysan laser iyo telefoonada gacanta oo weliba heerkooda aad u sarreeyo, isla markaana la xiriira amniga. Banaanbaxayaasha Hong Kong ayaa ugu muuqda kuwo iska difaacaya, ayna doonayeen in ay qabato kaamirooyinka iyo weliba mawjadaha ay isticmaalayaan booliiska rabshadaha ka hortaga. Before the streets become chaotic, furo waxaan isticmaalnaa dalladaha. Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa rinji aan ku buufinayno kaamirooyinka si aysan noo qabanin. Haddii kaamiradu ay ku qabato, waxaa fududaanaysa ciidanka in ay ku arkaan isla markaana ay ku soo helaan. Waxaan isku dayi doonaa inaan isticmaalno qalabka loo yaqaano laysarka. Si qarsoodi ah ayaan sawir loogu diraa airdrop. Dadka ma garanayaan cidda dirtay, mana garanaysid cidda aad u dirtay adna. almost every weekend since June. He says the central nervous system of the hadday muwaadiniintu arkaan gawaadhi badan oo booliis oo meel jooga, iyaga ayaa ogeysiinayay doona kooxda. Marka dadka safka hore jooga si loo badbaadiyo, waxaan leenahay erayo aan isku fahmeen, kaasoo ah ereyga cirfi. Waxay macnaheedu tahay in aan isku dayi doonno inaan soo helno booliis oo aan ka saarno kooxda. These are the most booliiska ayaa isku dayi doona in ayna helaan. Haddii aadan qarin wejigaaga oo dhan, xitaa dhagahaaga, caddeyn ayay u noqon doontaa in ay ku soo qabtaan. Ma u baahan tahay Timefall si aad ugu duubto edhikaarkaaga iyo telefoonkaaga gacanta? Dadweynaha ayaa isticmaalaya si ay u qariyaan edhikaaradooda iyo telefoonadooda aanan loo arkin. Tani macnaheedu ma ahan hab wareer ah. Fail Express Media.